Soomaaliyeed meel alla meel aad joogtiinba ila reereeya oo ila farxa maanta waxaa dhalanaysa taariikh cusub oo ummadda Soomaalida ay leedahay calan dushina inaydan saartaan wacaawadiina Soomaaliya adigoo waqtiga kan la marayo xorriyadaada qaadanaysa oo dhalanaysa waxaad leedahay waji waxaad leedahay magac ilaahay ha ku magan geliyo cimri dheerna ha ku siiyo aadan cabdilla cismaan oo ah madaxweynaha dalkan cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay Soomaaliya inay noqotay dal xor ah oo xubinna ka noqday jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa anigoo idinkuna ogeysiinhaya qalbi farax badan dhalashada jamhuuriyadda Soomaali iga aqbala inaan wada jir isku faanino kulligeen kala sooc annaga aan lahayn maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxaynu nahay xor talada iyadana gacantana inoogu jirtaa Soomaaliyeed ilaahay ha najeeyo jamhuuriyadda Soomaaliya